السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogto way salaanay Allah idin barakeeyo. Dadku mar walba waxay weydiiyaan daawooyinkaad al-shafa aad haysaan yaa soo tijaabiyay yaa soo hubiyay xagee maaragtay laga keenay marka mar walba waa su'aalaha ugu badan oo dadku ay weydiiyaan. marka waxaan rabaa inaan maanta ka ciiltiro oo walaalaha aan ka qabtiro. horta anaga waxaan ka soo adeeganaa yani dalalka daawooyinka soo saaro kuwada ugu quality-ga wanaagsan oo ugu quality-ga fiican. hadda halka waa u jeedaa maxaa ku qoran pharmacy dhakhaatiir bay leeyihiin halka u fadhiyo dhammaan laab bay soo wada mareen. waa dukaamada ugu waaweyn dukaamada caalamka hadda kan ku dhex jiro oo hadda halka ka aragtaan aad baa looga adeeganayaa dadka aad bay uga adeeganayaan. marka horta waxaad ogaataan waxa al-shafa idin keentay inay yihiin wax la soo hubiyay la soo tijaabiyay sidoo kale inay yihiin daawooyin quality leh xataa kuwaasoo waxaan xataa kala dooranaa daawadana doofaar malada mas'ala hadda sida kan oo kale waa daawooyinka doofaarka ku jiro oo aan ka leexano sababtoo ah doofaar baa ku jiro. marka waxa ugu talagalay walaalaha meel kasta joogaan hadda sida kan oo kale hadda aad buu u fiican yahay laakiin doofaar baa ku jiro. marka anaga maadaama dad islaam aan nahay ma suurtagali karto wax doofaar ku jiro inaan walaalaheenna siino inaan u qarino dad islaam aan nahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka magan galay. marka waxaan rabaa walaalaha inaan u sheego daawooyinka horta aan idin keeno waa inaad soo ogaataan daawooyin quality leh hadda dukaanka waad aragtaan dukaamada caalamka ugu waaweyn buu ku jiraa soo ma jeedaan dukaamada caalamka ugu waaweyn buu ku jiraa oo laga adeeganayo dalka Mareykanka. marka daawooyinka aan keeno waa daawooyinka ugu quality-ga badan saa ay taano si kala dooranaa daawooyinka internet aragtaan waxaanu daaweyna baan si kala dooranaa kamarigay ugu fiican kee la amaanaya. marka halkaas maartay uu ku dhagan yahay xataa daawadan dhakhaatiirtu inay dadka u qoraan ma lambaroonba ma lambartuuba halkaas ay ku qoran tahay marka oo lambar 1 ay ku qoran tahay. marka waxa ku qoran midaal oo kale daawadan waa daawada dhakhaatiirtu ay lambar 1 dadka u qoraan midaal hadda mid indhaha kale halkan taalay ما قال ميل aaday waxa ku qoran dadka indhaha xanuunaya dhakhaatiirtu lambar 1 daawadan ay qoraan hadda midaal kuwa caloosh socodsiyo kale saasa ku qoran kuwa gaaska saasa ku qoran. marka ilaahay haydan barakeeyo yani saas horta inaad la socotaan daawooyinkan idin siinayna ama al-shafa idin keenayso inay yihiin daawooyin ka imaanayo dukaamada caalamka ugu waaweyn laga adeegto. marka hadda halka waad u jeedaan inta ruux oo meesha ka adeegayso waa u jeedaan inta ruux oo adeegayso ama inta ruux oo maaragtay line ku jirto waxbay wada gadanayaan. marka Allah idin sharfo intaas rabeen idin la wadaago insha Allah ta'ala ilaahayna haydin aqbalo ilaahayna ha noo wada aqbalo ilaahayna haydin xiftiyo jazaakum Allah khayr meel kasta joogtaan. maanta marka waxaan ku jirnaa adeegyadii al-shafa noo adeegi jirnay kuwooda ugu fiicnaa ama maaragtay ugu haboonaan ku jirnaa insha Allah ta'ala anagoo si kala xulanayna aad iyo aad baan u mahadsantiin ilaahayna haydin barakeeyo meel kasta joogtaan. waxaan idin leenahay xilli kasta aad ku sugan tihiin maalinta idin wanaagsanaato waqtiguna Allah idin wanaajiyo waa u jeedaan dhakhaatiirta laftiisa linka lagu jiro. marka ilaahay haydin barakeeyo meel kasta joogtaan khayr fara badan baan idinkaga tagayaa sida la socda waa inay iga hadho maanta kadib daawooyinka ma la soo tijaabiyay waxaad maanta marka ogaanaysaa daawooyinka kambaniyada ugu waaweyn caalamka inaanu ka soo adeegayno kuwada ugu tayada fiican yani caalamka laga adeegto oo lambar 1 ka ah oo gobol kasta tagto Mareykanka ku yaalo. marka inay yihiin daawooyin quality leh daawooyin qiimo leh daawooyin tayo leh mid kale anagu xitaa qiimaha ma fiirno hadda daawadana kala fiiriyo $21 ay joogtaa $21 waxa ka muhiimsan qofka bini'aadamka caafimaadkiisa. hadda tan oo kala fiiriyo waxa la inaan la shafiiraan dadka qaar daawooyinka qaalisan hadda fiirtan kale waa $40 laakiin waxa ka muhiimsan caafimaadka qofkaas daawada uu ka helayo soo ma jeedaan hadda kan oo kala fiiriyo waa adigu waa iska $30 waxba kama dhinana $29 marka cashuurta lagu daro 30 baa faysay tagaysaa kolon kale waa u jeedaan 42 marka Allah idin barakeeyo. marka mar walba anagu waxaan fiirnaa waxaan maxaa qofka bini'aadanka faa'iido ugu jiro dadku qaatay isticmaalay maxay jawaab ka bixiyeen dadka daawooyinkan soo isticmaalay maxay ka maartay ay ka yiraahdeen. marka taas ayaa ah tamar walba anagu aan fiirinano taas ayaa ah tamar walba anaga raali gelinayso taas ayaa tamar walba aan ku farxano taas ayaa ah maartay ta ugu maartay maxquulsan. marka aad iyo aad baan mahadsantihiin ilaahayna haydin barakeeyo khayr fara badan idin rajeynaya sida la socda. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
مثال سيدا هذا أنا كمبني أنت بدن أنا استعمال رر مريكان هان وحن كود رر الشفا هان وكمبني هذا ماش كبو كم مقضى نجس بونت داوين بسعاد وفي عن هذا فيش أويل كان كيالو لكن داوين فربدن بولية أو كيالو وعاد يادو في عن أو رنهانتي دول بله هذي جاس كنقطة هذي سنقرط النقطة هذي ديكر كنقطة هذي إنفكشنات كنقطة سبلمات هذا بروستات كنين بولية سبلمات اللي عاد وفي عن مركا وحق رجع جرده كعبنا يو هذا واحدة وحول هذا سكين كدتك سكين كمارس مركا ما شاء الله مركا داوينك waxay ku jiraan kuwa ugu fiican oo runhaantii dadkuna ay aad u qaataan dadkuna maartay qofkii yaqaano oo ku soo laalaabanayo waa ku caafimaaday marka jazaakumullahu khayr